السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن سلام يا سومالية ميل بدو دون تعالي سكدوكتان ومحمد إبراهيم حلدوني حكمة وحان هذا كور كهذا برنامج آدو قيمة بدن أو كهذا معانك عذرك معانك أما سوماليدو تقارن وكذا سكروجة آد بلوحي سيء وحان رامركا إن برنامج كلافي عن أو آدو قيمة بدن أو كعلم بدن كي هرنا سمايو مركا حنونك معانك tusaalooyin baan ka bixiyay waxyaalaha lagu garto inuu ku hayo iyo inuusan cudurka ku haynin tusaale iyo calaamadaha lagu gartana waan sheegay oo ka mid tahay kaadi badan ka mid tahay oon badan oo ka mid tahay madaxu ku xanuuna marka cunto so many other things baan ka hadlay marka hadda waxaan rabaa in aan ka hadlo qaabka cuntada loo cuno macaanka iyo cuntooyinka waxay u kala baxaan dad far badan baan arkay oo Soomaaliyeed oon kala garanaynin noocyada cuntada u kala baxaan haddii ay kala garan lahaayeen ay fahmi lahaayeen cudurkooda iyo meesha daawadooda ay ka dhowdahay marka number 1 waxaan rabaa inaan kala qeexo ama aan kala ifiyo cuntooyinka waxay u kala baxaan cuntooyinka waxay u kala baxaan fats oo waxyaalaha saliidaha ku imaada nooc walba ha ahaadaane baruurta saliida saliidadeeda saliidahan kale ee fiican ee la leeyahay waxa la dhigi jiray coconut oil-ka waxyaalahaas oo dhan any kind of saliid meesha ku imaata waa fat marka waa nooc min cuntooyinka kale ee jira waxa kamid ah proteins marka la dhaho waxa soo hoosgalaya hilibka waxa soo hoosgalaya malaayga waxa soo hoosgalaya kalluunka waxa soo hoosgalaya waxyaalaha kale oo kunta ay ka mid yihiin dairy baa jira oo caana iyaduna laakiin hadda waxaan rabaa inaan xoog saaro fatiska iyo proteinka iyo waxa loo yaqaan carbohydrateska oo aad aan Soomaalinahay aan u isticmaalno carbohydrateska waxa soo hoosgala briiska baastada waxyaalaha dhan burka laga sameeyo sida jabatiga iyo canjeerada aan ku halanahay Soomaalida aad ku cunaan so many other things oo waxa jira macaanka ah sokorta laga suubiyo waxaas oo dhan ba carbohydrates hoos imaada marka waxaan niri fatiska proteinka iyo carbohydrateska dheeriga caanaha hadda ma u galayno because caanaha Soomaalida way jecel yihiin wax weyn oo hadda dhib ay leeyihiin ma laha laakiin kuwa reer galbeedka lagu sameeyo waxa ku jirta sokor haddaad fiiriso contentiska aad akhriso waxa ku jirta sokor marka waan idin tusi doonaa maalin gooni ka hadli doonaa shay far badan oo sokor ku jirto iyo sidii la sagal halna laakiin maanta cashirkeenu wuxuu ku saabsan yahay fatiska proteinka iyo carbohydrateska aanu imaano marka fatiska aanu imaano waxyaalaha fatiska ugu dhib badan ugu maxaa la jiray waxyeelada badan waxa kamid oo Soomaalida aad u isticmaalaan because anagu Soomaali baan nahay waxa loo yaqaan saliid cadeed waxa la sheegaa in ay keento cudurka loo yaqaan kansarka oo haddana aad aragteen in dadkeena Soomaaliyeed uu kansarka aad ugu badan yahay saliid cadeed wax fiican ma aha in la isticmaalana muqul talinayno umada kulama talinayno marka booski saliid cadeed la isticmaal lahaa waxaan ku talinaynaa wixii soo jireenka Soomaalidu heeda lagu yaqaanay oo kamid ah subaga macsarada iyo saliidaha kale ay awoodi karaan haddii reer galbeedka aad joogto oo wadamadan Europe iyo Mareykan iyo Canada aad ku nooshayna waxaan kugu talinaynaa inaad isticmaasho coconut oil-ka avocado oil-ka coconut waxa la yiraahdaa qumba laga sameeyay saliid qumba laga sameeyay weeye coconut oil waa saliid laga sameeyay muxuu ahaa qumbaha avocado oil waxa laga sameeyay avocadada coconut kan waxa laga sameeyay qumbaha saliidahaas oo cold press waliba oo si qabow loo majiray loo hagaajiyay waa saliida fiican kuwa la isticmaalo kuwa saliid cadeedana laga tago proteinka marka saliidaha horta ma kiciyaan baa la yiri sokorta ma kiciyaan haddaad isticmaasho saliid sokortaadu ma kacayso hadda isbaarto oo baashi isku baaraya isku baarto ama bahal hadda garabka lagu dhajistaa la keenay oo sokorta lagu baaro hadda qalabka isku baarto oo saliid isticmaalay kaliya wax kale aad ku darin sokortaada ma kacayso graaf ay leedahay ma kacayso haddii protein aan cunto hilibka waxa laga yaabaa xogaa yar inay kacdo malaay cunto waxyaalo kale cunto hadii aan bur iyo qashin kale aan lagu darin marka proteinkan aad uma kaciyo sokorta faatka iyo saliidahan aad sokorta uma kaciyaan sokorta waxa aad ku kiciyo waxyaalaha laga sameeyay carbohydrateska waxyaalaha ka imaada ayaa aad sokorta u kiciya marka in la iska ilaaliyana aad loo baahan yahay canjeerada jabatiga baastada so many other things macaanka kale ee sokorta lagu qasay waxaas oo dhan carbohydrates hoos imaanayaan waxaana loo baahan yahay
in muxuu ahaa aada laisaga ilaaliyo waxyaalaha. marka saddexdaa qaybood baan rabnaa inaan cuntada u qaybno iyo dheeriga oon sheegay oo ah isaga laftirkiisa caanaha haddii ay kuwii Soomaaliya caana geelkii iyo waxa ay yihiin waa okay. haddii caanaha reer galbeedka yaalla ee lasoo qasay ay yihiinna sokor baa ku jirta, marka kuma fiicna haddii aad diabetic tahay. marka waxaan rabaa marka in aan muxuu ahaa barnaamijka aan kusoo daro the content alaabaha laga gato supermarketyada iyo dukaamada waxaa ku yaala gadaal kaga qoran muxuu ahaa waxyaalaha uu ka samaysan yahay, imisa carbohydrate, imisa transferda, imisa sugara. marka waxaad iska fiirisaan wax walbo oo aad ka gadanayso supermarketka in contentiga gadaal ku yaala iska akhriso. for example aan siinaya waxaa jira rootiyo ama rooti badan aad baa la cunaa dadka reer galbeedka jooga. waxaa gadaal kaga qoran content. haddaad fiiriso contentiga carbohydrate-ka maanta waxaan xooga saarayaa inaad aada isaga ilaalisaan carbohydrateska. marka gadaal waxaa kaga qoran 2 slices of bread, laba jab oo rooti ah. gadaal waxaa kaga qoran inay ku jirtaan qaarkood 41 grams of carbohydrate. 41 grams of carbohydrate. fiber oo ayadana nutrient ah oo qofka sokorta qaba u fiican waxaa laga yaabaa inay 1 or 2 ku jiraan ama 3. markaas dadka xisaaba waxaan waxaa aada loo xisaabaa imisa carbohydrate baa ku jirta iyo imisa fiber baa ku jirta. haddii for example uu jiro 5 fiber ah 5 carbohydrate waa isku baxayaan. marka carbohydrate-ka aada wax kuuma yeelayo because fiberka kaa celinaya waxyeeladii uu kugu sameyn lahaa rootiga aa cuntay. qaar waxaa jira loogu talagalay dadka keto isticmaala ama nooca micnaha dietka keto la dhaho oo aada uga carara carbohydrateska ama sokor qab ama ha qabin. carbohydrate fara badan mar walba kuma fiicna. dadka waxaa la yiri waxaa loo qaybiyaa qayb sokor qabta iyo qayb sokor kusoo socoto iyo qayb caafimaad qabta. marka waxaa aada u badan qaybta qabta iyo qaybta kusoo socoto. haddii aad isbaarta ama dhakhtarta waxaa laga yaabaa in lagu dhaho sokortaadu high bay tahay. marka haddii wixii aada cunaysay ay mar walba carbohydrate ku badan yihiin waa lama huraan in sokor ay ku imaan doonto ama kugu dhici doonto. haddii hadda aad kasii fikirtood barato waxyaalaha aad cunayso iyo si aad u ogaan lahayd dhibaatooyinka ay ku keensan karaanna waxaa laga yaabaa in aad ka badbaado cudurro badan oo in the long run kugu dhici lahaa. marka waad mahadsantihiin. macaankaasaan rabin aan ka hadlo. contentiskana waa idin tusi doonaa qaabka loo akriyo. waxaan keeni doonaa marka iyadoo qoran waa idin tusayaa aad aragtaane. khayr badan baan idin rajeynayaa. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.